Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada casharkeena Windows 10. Maanta casharka waxaan ku eegaynaa sida kombiyuutarkaaga ama Windows 10 device loogu xiro printer. Sida printerka loogu xiro kombiyuutarka waxay noqon karaa afar waxyaalood buu noqon karaa printerkaas aad ugu xiri karaa kombiyuutarka, afar nooc oo kala duwan ama afar si ayaa suurtagal inaad ugu xirtid printerkaas kombiyuutarka. Kan koowaad waa adiga oo isticmaala USB, macnaha printerka hadduu USB leeyahay waa fiilada USB-ga markaas isticmaalaysid oo aad kombiyuutarkana ku xidhid printerkana ku xidhid markaad labadaba shidid. Marka qaybta afka USB-ga badanaa printerka wuxuu ku yimaadaa fiiladan hadda sawirkeeda halkan ka muuqdo. Afkan oo noocan sidaan kulubka wuxuu ku xirmaa printerka. Afkan caadiga USB-gana wuxuu ku xirmayaa kombiyuutarka. Sida hadda halkaanba ka muuqata sawirka laptopkan, qaybtan kombiyuutarka USB-giisa ayay galaysaa, waa qaybtan. Qaybtanna oo dhubucsanna waxay galaysaa printerka. Markaas saas isugu xidhid, markaa kombiyuutarka iyo printerka markaas isku xidhid, waxaa kaloo aad samaynaysid waxa weeye printerka wuxuu ku shaqeeyaa driver, waa software. Markaas aad ka soo dejinaysid website-ka printerka qolada samaysay oo warshada samaysay, sida hadda Canon oo kale, HP oo kale, website-keeda aad tegaysaa. Printerka modelka uu yahay, macnaha naqshadiisa ayaad driverka ay u sameeyeen baad soo dejinaysaa, kombiyuutarkaagaad ku xiraysaa. Markaa driverka markaa kombiyuutarka ku xidhid, markaad soo dejisid oo ku xidhid, kabacdi markaa USB-ga gelisid sida caadiga markaa isagaa ishelaya oo isku xiraya. Taas waa qayb oo wuxuu noqon karaa USB. Waxaa kaloo noqon karaa network printerkaas oo markaas fiila networka ku xiran, sida hadda halkan ka muuqata Cat5 fiilada la dhaho ama network ethernet cable loo yaqaan, waa waxaad ku xiraysaa printerka. oo printerka markaas wuxuu leeyahay LAN port ama meeshaas ay fiiladaas oo network ay gasho. Marka printerka ayaad gelinaysaa fiiladaas. Waxaad kaloo gelinaysaa routerkaaga, ama haddii aad router isticmaalaysid, ama modem haddaad modem isticmaalaysid, ama switchka haddaad switch isticmaalaysid. Marka wixii sidaad network gurigaaga ama aad meeshaad ka shaqaynaysid ay isugu xiran ayaad gelinaysaa. Marka labada isku xidhid, waxaa muhiima markaas inuu printerkaas uu IP address uu leeyahay. IP addresska laba si ayaa loo sameeyaa. Sida caadiga inta badan waxaa la isticmaalaa DHCP oo markaas si macnaha automatic IP isugu u gelinaya printerka. oo routerka ama modemka badanaa waxay ku sameeyaan markii shay lagu xiro networka, haddii aan markaa disable laga dhigin oo la curyaamin, IP addresska isagaa isa siinaya. Marka waxaa muhiima menuga printerka meeshiisa menugiisa inaad tagtid oo IP addresska markaa isu assign gareeyo aad heshid, kabacdi markaas ayaad ku xiraysaa, ayaad ku xiri kadhaa. Waan idin tusayaa sida loogu xiro oo IP addresska markaad heshid, sida kombiyuutarka iyo la isugu xiro printerka. Sidoo kale waxaad u baahan tahay driversaan hore u sheegaba oo markaa printerka noociisa inaad soo dejisid, modelka driverkiisa oo kombiyuutarka ku xidhid. Intaadan isku dayin inaad isku xidhid kombiyuutarka iyo printerka. Windows 10na inta badan waxay isticmaashaa generic driver. Haddaadan markaa driverka printerka aadan haysan, iyadaa mid generic isku xiraysa oo markaas waad isticmaali karaa printerka. Inta badan printerka hadduuba noocyadii dama yahay, driver la-aan adaan soo dejin noocaas inay kuu shaqeeyo ayay u badan tahay.
wuxuu kala noqon karaa wireless oo markaad printerkaaga networkaaga aad keentid wireless ahaan hadduu yahay wireless ahaan ayaad ugu xiri kartaa oo wirelesskana wuxuu u baahan yahay markaas IP address oo markaa ku xidhid printerka wirelesskaaga markaas wuxuu isa siinayaa IP address. Marka IP addresska waa muhiim hadduu network printer yahay ama wifi ha ahaado wireless ah ama network ha ahaado oo ethernet cable isticmaalaya waa inaad haysatid IP addresska printerkaas si aad markaas awood ugu yeelatid inaad computerkaaga ku xidhid. wuxuu kaloo noqon karaa bluetooth ma badna bluetooth printerska waxa badanaa bluetooth ku yimaada printerada yaryar oo waxyaalaha labelka waxyaalaha yaryar lagu print gareeyo sida kanoo printerada aad u yaryar. marka bluetooth hadduu yahana markaas si bluetooth ahna ayaad computerkaaga ama device-kaaga ugu xiraysaa oo markaa isaga ishelaya bluetooth-ka ma u baahna IP address waxa uu u baahan yahay inuu markaas labada shay isu dhow yihiin isheli karaana markay ishelaan markaas ayaad isku xiri kartaa. marka saddexda nooc ayuu noqon karaa macnaha printerka. waagi hore waxaa la isticmaali jiray fiilo parallel la dhaho printerada qaarkood waxay ku imaan jireen parallel waa fiilo weyn taas halkan kama hadlayo because waa waqti hore bay ahayd hadda wax la isticmaalo ma jiro ilaa uusan printerka ahayn mid waqti hore yimi oo label printer sida labeladii hore Zebra iyo Printronix iyo waxyaala horey loo isticmaali jiray. printerada noocaas kale waxaa laga yaabaa inay ku yimaadaan parallel haddana xataa hadduu printerka parallel ku yimaado waa loo bedeli karaa network oo waxaad lagu xiri karaa parallel to network adapter ayaad ku xiri karaa. marka sida caadiga ah waqtigan hadda joogna saddexda nooc ayay printer ku iman karaan inay yihiin USB inay yihiin network wireless ama wire ama inay yihiin bluetooth. marka hadda waxaan sameynayaa computerkayga oo Windows 10 waxaan ku xirayaa printer oo USB ah oo waxaa sameeyay printerka Canon modelkana waxa weeye Pixima 490. marka haddaan baaro oo website-kooda aan tago ama se Google aan ka baaro Canon Pixima 490 waxaan tegayaa markaas website-kooda modelkaas waa inaan waxaa muhiima model saxa inaan markaas ama naqshada printerka oo saxda driverkiisa inaan soo download gareeyo ama soo dejiyo. marka waxaan oranayaa drivers and downloads. warshad kasta oo markaas samaysa wuxuu yahay ama HP ha ahaado ama Brothers ha ahaado ama mid walba website-kooda ayay ku soo geliyaan printerada driverkooda. marka maadaama aan Windows 10 u yahay computerkayga waxaan soo dejinayaa package-ka oo ah Windows. marka haddaan kaas soo dejiyo soo download gareeyo waana exe file markaas si uu isagu isugu xiro si waxaa jira manual haddaan rabo manual printer oo basic ah waan isagaa soo dejin karaa waana ku xiri karaa laakiin waxaa ka fudud kan ay markaa package gareeyaan markaa isaga loogu talagalay Windows oo isagu isku xiraya. markaan soo dejiyo kabacdi computerka ayaan ku xirayaa software-ka sida caadiga ah. next baan gujinayaa ilaan ka dhameeyo. marka wuxuu weydiinayaa marka printerka wuxuu yahay common way hadda printerka Canonka kuma gooni kuma ahan kulligood optionkaas leeyihiin. marka hadda micnaheeda waxa weeye ma ahan inaan computerka iyo printerka isku xiro waa option way waa haddana waa ku xiri karaa haddaan rabana hadhow waan ku xiri karaa wax dhiba ma lahan waayo driverka ayuu isku xirayaa.
software-ka markaan computerka ku xiro driver iska ku xiro computerka markaan printerka iyo isku xiro iyo computerka isaga uu helayaa isaga si macnaha automatic ayuu helayaa haddana hadda qaybtan ka boodo haddii laakiin aad markaas rabtid inaad hadda ku xidhid saasaa ka fudud amase ka dhib yar maadaama uu markaad ku xidhid uu soo download garaynayo ama ku xirayo printerkaas driverskiisa isla markiiba marka hadda wuxuu sameynayaa markuu soo dejiyo package-ka ama software-ka printerka wuxuu sameynayaa wuu isku xirayaa marka waa joojiyey cajiladda intuu soo download garinayay intii dambe haddana waa joojinayaa ilaa uu ka dhameeyo ilaa uu ku xiro markuu ku xiro ka bacdi ayaan dib marka hadda software-kii wuu soo dejiyey computerka wuu ku xiray waxaa marka ii dhiman inaan isku xiro computerka iyo USB printerka marka waxaan sameynayaa computerka iyo waxaan isku xirayaa hadda iyo printerka sida hadda idiin muuqata uu detect gareeyay marka hadda wuxuu isku xirayaa computerka iyo printerka ayuu isku xirayaa meeshaan necessary ma aha ama se muhiim ma ahan in maaragtay software-ka markaa ku xidhid asaas u gelisid ay ku furnaato tan hadda kan xataa aan cancel dhaho aan joojiyo markaas iyaga uu isku xirayaa oo marnaba muhiim ma ahan inaad software-ka markaa soo dejisid inaad connectionkeeda aad isticmaashid si aad isugu xidhid sida hadda muuqata wuu helay wuu ku xiray wuu isku xiray printerka iyo computerka hadda waan testi garayn karaa oo hadda haddaan testi garayo markaas wuxuu print garaynayaa test page marka haddaan fiiriyo oo aan tago control panel printers and devices or devices and printers haddaan tago marka waxaa ii soo baxaysa inuu ku xiran yahay printerkayga oo ah printerkan Canon MX 490 marka haddaan hadda dhinka midigta gujiyo right click haddaan ku sameeyo oo aan dhaho remove device markaas micnaheeda yahay device-ka tirtir haddaan demiyo haddana shido isagaa isku xiraya oo hal mar haddii aan driverka computer kusoo dejiyo oo ku xiro mar walbo aan isku xiro printerka iyo computerka si automatic ayuu isugu xirayaa oo markaa ma u baahni mar labaad inaan driverka soo download gareeyo waa hal mar uun baad ku xiraysaa kada waa isagaa si automatic isugu xiraya marka taas waxay ahayd si loogu xiro computerkaaga USB printer kadana waxaan idin tusayaa sida loogu hadda waxaan eegaynaa si computerkaaga loogu xiro network printer waxaan idhi sida muhiimka ah network printer markuu printerkaaga markuu network yahay waa inaad haysataa IP addresska markaas printerkaas markaad IP addresska aad heshid printerka waliba haddaa awoodid waxaa sii fiican IP addresska printerkaas inuu manual yahay uusan DHCP ahayn uusan ahayn macnaha IP address oo automatically uu markaas printerka isaga isa siiyey ama qaybta controlsha IP addresska networkaaga ay siisay oo DHCP-ga oo routerkaaga ama shayga DHCP-ga networkaaga IP addresska bixinaya micnaheeda markaas muhiimadii waxa weeye markaad IP addresska printerkaas aad heshid ka bacdi waxaad sameynaysaa waxaad taabanaysaa add printer markaad add printer taabatid wuxuu baarayaa macnaha wixii printer networkaaga la wadaagay oo computerada kale ay la wadaageen networka ku xiran marka hadduu printerkaaga kasoo bixi waayo sida fiicanna waxaaba fiicanba inaad adiga macnaha computerkaaga ku xidhid printerka aadan meel kale
device kale printer uu isticmaalayo aadan isticmaalin marka waxaa odanaysaa the printer that I wanted is not listed and linkigaas baad gujinaysaa oo halkaa kasoo baxaya si aad markaa computerka ugu dadid markaa linkiga gujisid waxaad xulanaysaa add printer using TCP IP address markaas waxaad gujinaysaa next halkan oo driver type-ka ah automatic waad u dhaafi kadhaa haddaad rabtid markaas sida ugu habboon inuu ugu xiro laakiin waxaa kasii fiican inaad xulatid markaa TCP IP ayaa waxay tahay qaabka ugu habboon oo markaas printerkaas uu reliable ugu noqon karo computerkaaga ama se macnaha shay mar walba macnaha uu printer oo la isku halayn leh oo mar walba reliable ah si uu u noqdo waxaad xulanaysaa TCP IP device marka printerka IP addresskiisa ayaad halkan ku qoraysaa oo macnaha printerkaaga IP addresskiisa noocu yahana hadduu printerkaas uu badanaa printerada dambe oo noocyadii dambe oo dhan website-ka haddaa geshid oo IP addresskaas aad browser ku qodhid oo printerka IP address uu kuu soo baxayaa details maadaama uusan printerkaas uusan certificate lahayn wuxuu oranayaa macnaha warning uu siinayaa laakiin details haddaan taabto go to the page macnaha printer page-ka markaas wuxuu ii soo saarayaa in printerkaas wuxuu yahay sida hadda halkan ka muuqata printerkayga waxa weeye waa Kuxirida task alpha 551 CI markaan ogaado printerkaas warshada soo saarday oo Kuxirida iyo modelka printerkaas oo naqshada uu yahay oo printerkaaga uu yahay markaa ogaatid si aad markaa driverkiisa u soo dejisid waxaad sameynaysaa next marka isagaa israadinaya halkan markuu joogo maadaama aan aqaano inuu printerkayga uu Kuxirida yahay halkan waa ka raadin karaa inuu macnaha ku jiro printerkaas oo halkan uu ku xiran yahay wuxuu ahaa task alpha marka printerkayga hadda computerkan uu ku xiran yahay oo haddaan xusho warshada iyo modelka oo aan aqaano inuu ahay maya wuxuu ahaa 3551 uu ahaa saas waa u xulan karaa haddaan halkan ka waaya laakiin uusan ku jirin printerkayga uusan halkan ku jirin waxaan samayn karaa warshada samaysay website-koodan tegi karaa waa 3551 CI driver markaan tago website-kooda meesha laga soo dejiyo macnaha driverska halkan ayaan kasoo dejin karaa oo haddii macnaha printerka ugu habboon hadduu optionna kala duwan uu ku siiyo waxaad xulanaysaa kan oo Microsoft certified ah ay Microsoft ay macnaha xaqiijiyeen oo certificationka u sameeyeen Windows-kana badana laba nooc baa printerka PLC6 iyo XPS mar walba waxaa fiican PLC6 inay isticmaashid maadaama uu xawaarihiisa uu ka fiican yahay oo isticmaalo hardwareka computerka uusan isticmaalayn printerka laftigiisa driverka computerka u isticmaalaa PLC6-ka midda kale oo ah XPS-ka ama PostScript waxay isticmaashaa printerka hardwarekiisa marka uu xawaarihiisana wuu ka hooseeyaa marka kan oo PLC-ga ayaa badanaa column experience-ga aniga intaan soo arkay ka more reliable ka ah kan oo PostScript isagana ka xawaaro fiican marka waxaa soo dejinaysaa softwarekaas
markaa soo dejisid extraction aad ku samaynaysaa oo meel aad taqaanid ayaad software ku rogaysaa. marka aniga hadda waa soo dejiyey waxaan ku soo dejiyey download folder. markaan download ku soo dejiyey folder, marka printerkaas waxaa raadinaysaa fileka oo inf file waa driver file. marka kayga wuxuu ku jiraa folderkan 64 bit weeye computerkayga. marka inl fileka kale wuxuu ku jiraa halkan folderkan. marka waxaan samaynayaa, waxaan halkan meesha marayay waxaan taabanayaa. waa haddaan waayo markaas, haddaaba halkan ka heshid micnaheeda waxa weeye next unbaad taabanaysaa printerka, warshadaysa xulanaysaa iyo naqshadiisa, kabacdi next yaa gujinaysaa. markaa next gujisay isagaa isku xiraya. laakiin hadda halkan ka weysid browser oranaysaa meeshaa ku soo dejisay baa ka raadinaysaa markaas printerka driverka meeshii aad markaas aad adiga ku soo dejisay aad ku og tahay. hadda waxaan idhi kayga wuxuu ku jiraa PLC 64 bit. marka waa filekan inf filekaas weeye. opena oranayaa, waxaan oranayaa okay. markaan fileka xusho waxaan markaa xulanayaa printerkayga noocuu ahaa. waa 3551 CI PLC 6. markaan xusho haddaan hore ugu xiray markaa wuxuu i weydiinayaa inaan kan isticmaalo, haddii kale replace aan oran karaa. sidii isku mid waaye. magaca printerka ayaad markaas halkan ka xulanaysaa. magaca waa bedeli kadhaa, wixii adiga markaas kuwa habboon ayaad magaca ku bedeli kadhaa. marka ama waad la wadaagi kadhaa haddaad rabtid printerkaas inuu computerkaaga markuu shidan yahay uu computerada kale uu ka soo baxo, waxaa odhan kadhaa share this printer. marka micnaheeda waxa weeye computerada kale ayuu arki karaa printerka, waa markii uu computerkaagan u shidan yahay. haddii kale waxaa odhan kadhaa ha share garayn. markaan saas sameeyo micnaheeda waxa weeye hadda printerkaas wuu ku xiran yahay computerka. magacaan u bixiyay hadda kaan ku xiray waa kana. marka haddaan rabo mar walba aan wax printi garaynayo inaan printerkan isticmaalo ama kaan rabo, waxaan ku samaynayaa dhanka midigta ayaan ka gujinayaa. waxaan odhanayaa set as default. micnaheeda waxa weeye wuxuu noqonayaa printerka koowaad oo markaan wax printi garaynayo marka isukay xulaya aan ku printi garayn karo. markaa saas ka dhigo. oo markaan hadda document iyo kale markaan printi garaynayo haddaan dhaho file and print, badanaa kan defaultiga ah aan default ka dhigay ayaa halkan ka soo baxaya. haddaan rabo mid kale inaan ku printi garayo markaas halkaasaan gujinayaa, waan bedelayaa oo kii aan markaas rabo ayaan ku bedelayaa. laakiin sida caadada marka ugu horeysa kan soo baxaya waa kii aad markaa default ka dhigtay ayaa halkaa ka soo baxaya. marka taasna waxay ahayd sida loogu xiro network printer. muhiimadiisa waxa weeye inaad haysatid IP addresska, inaad soo dejisid driverka, inaad markaasaas ugu xidhid. midka saddexaad oo nooca saddexaad oo printerka wuxuu noqon karaa Bluetooth printer. Bluetooth haddaad ku xiraysid waxaad tegaysaa file and start settings devices. waxaad tegaysaa Bluetooth, add Bluetooth ayaa xulanaysaa. muhiim weeye isagana markaas inaad driverka ku xidhid intaadan tan samayn. marka printerkaaga Bluetoothka halkan ayuu ka soo baxaya, waa gujinaysaa. markaad gujis ka bacdi connect yaa odhanaysaa. sidaas ayuu isugu xirayaa. oo Bluetooth marka IP addressna ma isticmaalo physical ama connection oo fiilo oo nama isticmaalo. wuxuu isticmaalayaa technologyga Bluetoothka. waa inuu u dhow yahay marka computerkaaga ama shayga, macnaha marka within 100 mitir inuu u jiro ama ka yar hadduu Bluetoothkii hore yahay, ama Bluetoothka cusub oo 5ka ah ilaa 400 mitir inuu u jiro waaye. wixii ka badan markaas ma uu helayo. marka taasna waa Bluetooth. marka casharkan oo printerka iyo computerka sida la isugu xiro
halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.